waa maalin weyn oo kubadda cagta dadka daawada ama xiiseeya ay aad isha ugu hayaan sababtoo ah horyaalka Ingiriiska ayaa maalinta u dambaysa loo tartami doonaa maalinta berita ah dhowr jeer oo hore ay sidaas u soo dhacday laakiin markan waa mar kale oo ay ka duwan tahay maadaama Liverpool ay doonayso in ay qaadato ama ay ku guuleysato horyaalkoodii 20aad horyaalka Ingiriiska iyadoo oo rikoorka ka jabin doonto kooxda Manchester United oo ah kooxda ugu horyaalka badan Ingiriiska. Liverpool waxay leedahay 19 Manchester United waxay leedahay 20 horyaal sidaad wada ogtiin Liverpool kulankii Tottenham Barejo ayaa lagu qabtay laakiin Man City ayaa sidoo kale iyadana Barejo lagu qabtay taas ayaana ka dhigan in Man City iyo Liverpool farqiga dhibcaha u dhaxeeya kaliya ay tahay hal dhibcood oo kaliya Britana dhammaan 20 kooxood ee Premier League hal waqti ay wada ciyaari doonaan taas ayaana ka dhigan in top 4 ka sidoo kale ay u tartami doonaan kooxaha Arsenal iyo Tottenham laakiin waxa isha lagu wada hayaa oo qof kasto caalamka u joogo isha ku wada hayaa meesha ugu sareysa oo ah Liverpool iyo Manchester City oo hal dhibcood kaliya u dhaxayso Liverpool waxay u baahan tahay in ay 3 dhibcood ka qaadato kooxda Wolves garoonkuna waa Anfield oo xil ciyaareedkan aan marna lagu badin halka Man City-na ay u baahan tahay kaliya inay badiso iyadoo aan eegin natiijada ka soo baxday Liverpool Man City 3 dhibcood kaliya ay u baahan tahay horyaalka sidaas ay ku qaadaa laakiin Liverpool waxay u baahan tahay 3 dhibcood inay ka hesho Wolves kadibna Man City ugu yaraan Barejo lagu qabto waxa xusid mudan oo dad badan qaarkood ay og yihiin qaarna aysan ogeyn laga yaabe Man City waxay la ciyaareysaa kooxda Aston Villa yaa wato macalinka Steven Gerrard oo ah halyeeyay kooxda Liverpool ayaa wato sidoo kale waxa uu ciyaaray Aston Villa wiilkii dahabiga ahaa ee Liverpool Philippe Coutinho Liverpool taageerayaashooda caawa ilaa iyo Brito baryo iyo niyad samaan ayay ku jiri doonaan si Steven Gerrard uu awoodiisa oo dhan isugu geeyo sidii kaliya uu Barejo ugu qaban lahaa kooxda Man City Liverpoolna sidaas horyaalka ay ku qaado dhammaanteenaba diyaar ayaa u nahay kulankaas wuxuuna noqon doonaa kulan aad u weyn ama wuxuu noqon doonaa maalin taariikhda Premier League gasha iyadoo Man City gacmaheeda ku haysata inay horyaalka iyada ku guuleysato halka Liverpoolna looga baahan yahay inay guuleysato Man City-na Barejo lagu qabto Steven Gerrard iyo Philippe Coutinho Brito waxa la rajeynayaa inay meeshaas ka keenaan arin mucjiso ah oo Etihad Stadium ayaa sidoo kale xataa Man City ay ku ciyaareysaa horyaalada kale waa lagu guuleystay inta badan marka laga reebo Serie A iyo horyaalka Ingiriiska horyaalada kale ee La Liga iyo League 1 dhamaan waa lagu guuleystay Premier League xil ciyaareedkan waxa uu ahaa xil ciyaareed cajiib ah maadaama Liverpool January markii ay mareysay oo sanadkan ah laga sareeyay 10 dhibcood in ka badan ayaa laga sareeyay haddana hal dhibcood kaliya ayaa laga sareeyaa Liverpool waxay sidoo kale raadinaysaa in ay xil ciyaareedkan 4 koob ku guuleysato taas oo ka dhigi doonta taariikh cajiib ah oo koox kale aysan dhigin taariikhda horyaalka Ingiriiska waxay ku guuleysteen FA Cup-ka waxay ku guuleysteen Carling Cup-ka oo labada koobba ay ka qaadeen kooxda Chelsea Real sidoo kale finaalka Champions League ay hadda joogaan oo ay la ciyaari doonaan kooxda Real Madrid oo koobkan ah kooxda ugu badan ee haysata 28 bishan fadlan taariikhdaas meel ku qoro waana koobkooda saddexaad oo ay finaal joogaan Brito ayaa la kala ogaan doonaa Liverpool inay awood u yeelan karto inay qaado 4 koobood ama in ay ku guul dareysato oo kaliya ay fursad u heli karto inay 3 koob qaado waliba finaalkii lagu daro marka lagu daro u yahay marka Brito waa maalin weyn Soomaalida iyo dadka kale oo caalamka aad bay isugu diyaarinayaan horyaalka cidda qaadi doonta ma Liverpool ma Man City hal dhibcood ayaa u dhaxaysa Man City 3 dhibcood haday ayaa looga baahan yahay si ay horyaalka u guuleysato laakiin waxba isbedeli kara iyadoo Man City laga badiyay ama Barejo lagu celiyay ayaa Liverpoolna shaqadeeda aysan qabsan karin ayaa laga yaabaa oo Liverpool Barejo lagu celiyo ama laga badiyo laakiin Man City gacmaheeda ayuu saaran yahay horyaalka oo waxa looga baahan yahay in 3 dhibcood keensadaan si horyaalka u qaadaan laakiin annaga haddaan Liverpool nahay horyaalkan waxaan rajeynaynaa inuu noqdo horyaalkeenii 20aad ee Liverpool ay ku guuleysato meeshana aan ka saarno kooxda Manchester United oo ah kooxda kaliya ee ugu horyaalka badan horyaalka Ingiriiska 20 ayay haystaan dhabarkayga fanaanadan waxa ku buufsan numberka 20aad oo aan xil ciyaareedkan fanaanada maaliyadda ah oo aan ku buufsaday taas waxay ka dhigan tahay xil ciyaareedkan inaan qaadi doono horyaalkeeni 20aad bari ayuu ku beegan yahay waana maasantihiin boostiyada xigana isha ku haya